kulankan oo isagu qaybka kulamada lagu xoojinayo amniga nabadgelyada dib u heshiisiinta beelaha ku wada dhaqan gobolka Mudug ayaa waxaa maanta magaalada Gaalkacyo uga qayb galay mas'uuliyiin iyo waxgarad ka soo kala jeeda dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug. kulanka maanta ayaa ahaa mid lagu xalinayo dilal iyo colaado ka soo ogmay deegaanada ka tirsan gobolka Mudug kuwaas oo ay dad ku dhinteen waxaana kulanka intuu socday lagu kala qaatay duug lacageed. kulankan ayaa markii uu soo gabagabay waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo ee Puntland Shaafici Cabdullaahi Xaashi iyo gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo iyagu ka warbixiyay kulankan iyo sidoo kale dadaalada loogu jiro xalinta colaadaha taas oo uu sheegay gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan in qayb kamid ay hurinayaan kooxaha argagixisada kuwaas oo tilmaamay inay doonayaan inay ka faa'iideystaan inay amni darro ku abuuraan magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta iyo 3 bishii 8 waxaa halkan Hotel 5 Star ee Gaalkacyo dhinaca Galmudug isugu yimid odayaasha labada dhinac ee nabadoonnada ah ayagoo ka arrinsanayay dhacdooyin ka dhacay magaalada Gaalkacyo gudaheeda iyo barnaankeeda. shirkaas waxaa qayb ka ahaa maamulka degmada ee labada dhinac ee Gaalkacyo oo runtii waqti badan galiyay in ay ishor fariistaan xalna laga gaaro dhacdooyinkii ugu dambeeyay. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa nabadoonnada ee Gaalkacyo oo labada dhinacba qaatay doorkii ay lahaayeen. labadii gacmood oo ugu dambeysay oo ka dhacday deegaanka Gaxandhaale iyo dhacdo ka dhacday Gaalkacyo oo ay ka soo hoydeen odayaasha dhinaca Galmudug oo keenay tacsidii qorigii dilka lagu geystay iyo lacagtii duugta ahayd. muqaabiladaas kadib waxaa halkan lagu galay ballantaas oo laga galay magdheertii raggaas la dilay iyo in la socodsiiyo sidii hore u socotay nabadii Gaalkacyo oo laga miir dhaliyo. dhacdooyin horena way jireen oo runtii ballama laga lahaa oo aan yarayn oo odayaasha iyo maamuladu ay ballama ka lahaayeen heer gobol iyo heer degmo maamulada. runtii waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka dhabar adayga waqtiga ay gelinayaan iyo dadaalka nabadda maamuladuna ay ku garab taagan yihiin iyo dhammaan laamaha amnigu. dhacdooyinkaas maanta sidii xeerka u ahayd waxaa laga keenay lacag $4,000 ah oo ninkiiba 2,000 ah oo duugtii qorigii ah iyo sidoo kale qori dheeri oo laga furtay ninkii ku dhintay area Gaxandhaale. waan ka mahadcelinaynaa runtii waxaan leenahay intii dhimatana Allah u naxariisto ka samafalkana waa ka mahadcelinaynaa. inta kadib waxaa lagu ballamay magtii xaqa ahayd walaalaha dhintay Ilaahay u jideeyay in 4 bilood kadib insha Allah taala si nadiif ah loo bixiyo. arintaas runtii annaguna waxaan ka nahay dabagal iyo inaan taabagelino suurtagelinteeda insha Allah taala. odayaashii salaadiintuna waa ballan qaadeen. sidoo kale waxaan ku ballanay horay dhacdooyin u taagnaa in sida ugu fudud la iskaga yimaado isla markaana nabadda gobolka Mudug meesha la soo gaarsiiyay iyo halka ay marayso inaan ardaal iyo qof wax garata ah iyo dad dana gaar ah leh oo u adeegayo argagixiso aysan khalkhal gelin aan laga aqbalin.